hibashada qofka maqan murugiyadii badanaa maalinkiiba 10 jeer dambalina ka maqashaa maalinkiiba 10 jeer dambalina ka maqashaa maankaygu jecelaa hibashada qofka maqan murugiyadii badanaa maalinkiiba 10 jeer dambalina ka maqashaa maalinkiiba 10 jeer dambalina ka maqashaa maankaygu jecelaa waxaaniga igu mudan marna aanan daynay nafta meeday leedahay waadiga macaano sidaad u jeedaan waxaan soo dhaweynaynaa maantay oo noo imaatay fanaanad qaali nagu ah xaliimo gobaad iyo abwaan qaali ah asagana nabiil buule ku soo dhawow xaliimo Nairobi waa mahadsantahay walaalo thank you waan dhawahay alxamdulillah ilaahay wuu nabad keenay ma sha Allah marka dhamaantiin aad iyo aad baan idin wada salaamaya thank you guys balka waran intaanoo qof oo Nairobi kaaga timid oo maanta dhan qoraxda u taagneed si adiga ay wax badan kugu soo dhaweeyaan Nairobi aad iyo aad walaal waan idinkaga mahadcelinaa dhamaantiin anna waa idin jecelahay ogaadaya I love you balka waran dareenkaaga markaad aragtay Soomaali intaan la eeg oo ku taagan airportka maxaa dareentay wallahi waa I feel good it feels good ma sha Allah aad iyo aad baan muxuu ahaa happy wahay qorshaha aad u imaatay Nairobi waxa yar aad oo tafaasiil ka bixinaya anigu soo noqonaya dhagajila iyo bulshaawi iyo kooxda fandis baan dhamaan sax bal faahfaahin ka sii dadka ina daawanaya ee showgaaga sugaya in badan oo Soomaali oo xaafadda isla iyo guud ahaan Nairobi ku nool way sugayaan showgaaga oo wala hadalaya marka adigana tafaasiil ka sii insha Allah horta muxuu ahaa show baan oo dhacayo habeenka jaceylka 14 bisha marka waa ani iyo fanaaniinteeda dhamaanteen waan isgarab joognaa habeenka marka insha Allah de habeenka la soo wada baxreer Nairobi fankayga de Nairobi ka bilowday marka de one more time baa lagu celinayaa marka I see you guys insha Allah aad iyo aad baan waxaan soo weynaa xaliimo gobaad waxaan shacabka reer Nairobi ugu baaqiyaa waxa inoo balana 14 bisha kooxda fandisbaan fanaaniin kale oo iyaguna noo imaan doona oo xaliimo hadda igu soo horeysay Axmed Saki oo soo dhaweyn doona iyaguna sidoo kale gudoomiyaha kooxda waa kan Al-Ustaad Maxamed Abdullahi Diidi Bushaawi ku soo dhaweynaya insha Allah Bushaawi soo diyaarnta hay waxaan aad soo dhaweynaynaa oo aan halkan isugu nimid dhamaanteen si aan soo dhaweyn lahayn walaaladeen fanaanadena qaaliga xaliimo gobaad iyo walaalkeen Al-Ustaad Nabiil Bulle oo show kule magaalada Nairobi maalinta jacaylka 14 bisha February iyo hallka la yiraahdo Sarkazi Dome waxa show kula jira fanaanka weynaysna Axmed Saki Nimcaan Hilaac Muhaashire Xamdayar iyo kooxda Friendsman iqrayray adigu wixii aad ka tagay fanaaniin aad u badan waa showgi waxaan oran karaa waa showgi fanaaniinta ugu badan ay ka qayb galayaan ee Nairobi ka dhacaya marka yaanu sheegi ma dooran lahaa showgaasi waa habeenka 14 February iyo halkii showida aan ku dhigi jiray Nagara Sarkazi Dome aad bad ma ka warantaa qiimaha si taageerayaasha xaliimo iyo Axmed Saki ay ugu diyaar garoobaan qiimaha habeenka waxa lagu soo galay showga 2,000 shilin oo kaliya oo shilinka Kenya waa inta way qiimo heesa badanna way jiraan iyo waxyaabo badan ay ku qancaan dadka wax badan baan u diyognaa nabil balka waran maanta imaanshahaga Nairobi wallahi imaanshahayga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxay soo dhaweeyay asxaab tira badan fanaaniintii groupkii kooxdeedii abwaanadeedii marka aad baan ugu faraxsanahay waxaad qayb ka tahay xaliimo groupkeeda iyo Axmed Saki heesa badan waad u laxamaysay oo waad u sameysay qaybaad ka tahay adigana showga anigu kule martiin baan ahay asxaabtayda soo booqday
laakiin haa groupka Nairobi Finland Guulasimba Safwan Hala Axmed Seki Xaliim Gobaad Nasiib Yare Axabi walbay Xamse Xadaari dhamaantood baa anigoo Nasiib Cali waxaan halkan ka soo dhaweynayaa fanaanadeena qaaliga Xaliim Gobaad Axmed Seki legend the one and only my brother waxaan dhihi karaa Nabil Bulle marna walaalkiya isagana halkan aan ka soo dhaweynayo waxaan leeyahay Nairobi bishaaro showga la qaban doono waxa waa showga ugu ballaarnaa show la qabto abid dharkii cascasaana waa soo xiranaysaan intii isjeclaadna waxaan ku yiri intii isku kacsaneedba way heshiin doonaan haddii Ilaahay yiraahdo kala ilaab Axmed Seki wuu soo socdaa nimcaan hilaac wuu soo socdaa xamdo yarna way soo socotaa fundis baana dhammaan way wada joogaan looma kala harin holka waa Sarkazidum Ingara weeye lacagtana waa hala yar baan kaga dhignayo 2,000 shilin weeyaan afar fanaan oo aan wali ay show wali aan dhicin wali waa score aan hore u dhicin waaye heeso cusub baan la wada qaadi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo iyo intii hore u jecleedeen waqtigaas kale laab aadan idin salaamaya Xaliim Gobaad waxaan leenahay Nairobi ku soo dhaw iyo ustaadkeena weyn Nabil Bulle waxaan leenahay soo dhawaada si sidaan uga soo qayb galnay aan idin soo dhaweynay baa naga daacada ma sha Allah saasoo kalena insha Allah waxaan rajeynayaa 14ka February inaan sidaan dib u dhacdo insha Allah waqti qurux badan la wada qaato waqti fiican la wada qaato maanta waxaan soo dhaweynaynaa meeshan anagoo dhan waxaan isku imaanaynaa soo dhaweyno Xaliim Gobaad fanaanadeena weyn qaaliga iyo ustaad Nabil Bulle anagoo fundis baan iyo dhammaan asxaabta Nairobi waxaan ku leenahay ku soo dhawo Nairobi welcome to Nairobi thank you waxaan soo dhaweynayaa walaashay Xaliimo waxaan leeyahay welcome to Nairobi habeenka 14 February-ga yaan la moogaan lagana maqnaan macnaha waxba dhar cascas xataa yaan la isku shidan fiyoore la aniga hala ii keeno taas le waay anigoo qaali aragsana waxaan soo dhaweynayaa walaashay Xaliim Gobaad soo dhawow habeenkaas yaa la moogaan af Soomaali ma aqaani السلام عليكم waxaan ka soo dhaweynayaa fanaanadeeda weyn Xaliim Gobaad aba macaan ku soo dhaw magaalada Nairobi waa habeenka jacaylka 14 February inoo balana welcome waxaan soo dhaweynayaa fanaanadeeda qaaliga marna aan taageero aan aad ku jeclaa walaasheeda Xaliim Gobaad aba waxaan ku leeyahay karibu Kenya ku soo dhaw thank you marka hore fanaanadeena qaaliga soo dhaweynayna waxaan leeyahay fanaanada kaliya aan taageero oo taageero weyn oo ahay antan waa aamin la'aan horteeda taaginta marka waan soo dhaweynayaa soo dhawaa waxaad weydiin lahayd haddaad wax weydiin lahayd waxaan ku oran lahaa waxaan halkan taaganahay soo dhaweynaynaa walaashay Xaliim Gobaad waxaan ku leenahay ku soo dhaw magaaladaadii aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa intaan qof aad ku soo dhaweynaysaa insha Allah Nairobi waxaan u sheegaynaa taariikh 14 inay khudbada lagala baxayo tiirarka taariikha aad iyo aad ayaa ka badan halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa walaashin Xaliim Gobaad we love you iyo walaalkeen Nabil Bulle hala baasha Allah habeenkaas bismillaah halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa walaashin qaaliga magaceeda aan Xaliim ma aqaan aan ku baxsay aayaha nolosheeda welcome to Nairobi waxaan leenahay welcome to Nairobi showga waxaan leenahay reer Nairobi haddaan nahay dad nasiib laanahay maalintii jacaylkii Xaliim Gobaad bas la helnay iyo Axmed Seki iyo heesa jacayla marka waxaan leenahay welcome to Nairobi walaashay inuu qaaliya in badan baan ku sugaynaa maanta banaanka ku joognay aad baan ku jecelnaa waa maadsantahay thank you maxalda Sharif Allah Xaliim Gobaad taageeradeeda weyn aan kamid ahay aad u taageera my sister soo dhawow waxaan ka shideynaa xalfadaada Xaliim Gobaad in the house warahmatullaahi wabarakaatuh أنا مقعد ويا محمد حريت وعملت شيء شرف وفي عنام بدنا نوصل وينا ما يسيستا Xaliim Gobaad وهي سيدة أدو حسين جري ما تني فرصة دي تهينا أجستاجو marka waxaan leeyahay welcome to Nairobi showgaadana insha Allah waa dhisina waa kala kicinayna duuleeyada insha Allah Nabil Bulle welcome to Nairobi habeenka 14 February yala moogaanin insha Allah thank you
ما شاء الله waxaan soo dhaweynaynaa walaasheena Xaliimo Gabaad in badan aan sugaynay haddana 14 ma sha Allah waa imaan doonaa oo ka soo qayb gal doonaa saa ugu soo dhaweynaa garoonkan isla qof inuu hari waayo umaleeyo maya taa sharciga ka yaalo waqti badan la sugaayay insha Allah ya kala